soo dhawaada dhammaan dhalinyarada iyo akhyaarta kala duwan ee halkan igala socda kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkani Bunny Book. Runtii barnaamijkani Bunny Book maanta uu ka duwan yahay dhammaan barnaamijyadii hore oo waxaan kaga hadli doonaa arrimo aad in badan xiiseynayseen inaan idila soo wadaago runtii oo ah barnaamij aad u qiimo badan waxaana marti ugu ah nin dhalinyara oo runtii barnaamijkan aad ugu faradhuuban oo muddo dheerna ku jiray barnaamijkan runtii aan maanta halkan waxa weeyaan aan kaga sheekaysan doonaa aniga GateTrader Dini wuxuu noqon doonaa barnaamijka cryptocurrency and blockchain oo ah barnaamij runtii in badan dhigiina kusoo noqday intii weliba waxa weeyaan Trump imika qabsadayna hadal hayn fara badan dhalisay kooritiin aan barnaamijkan u gudagelin waxaan rabaa bal horta marka hore inaan kusoo dhaweeyey Trader Dini kusoo dhaw saaxiib barnaamijkan Bunny Book waa ku faraxsanahay maanta inaad barnaamijkan adigu marti ugu tahay هذا نودوهاي استراتيجية حربي هذا نود برحسنا هنا مانتا مدكاستين أوريان قبلنا guud ahaanba barnaamijkan cryptocurrency and blockchain oo ah barnaamij aan runtii dhalinyar fara badan aad u xiiseynayeen ayuu Trader Dini muddo dheer ku jiray sidoo kalena waa trader labada dhinacba marka forex-ka haddii noqoto cryptodaba ku jira runtiina xog fara badan baynu rabnaa maanta ama barnaamijkeenan inaynu kaga reebano Trader Dini kahor Trader Dini bal intaynaan barnaamijkan u gudagelin asxaabtii akhyaarta halkan inala socota bal waxaad ku sheegtaa waa kuma Trader Dini أنا وأنا هاي سلام مجا معك الجرنيسيت تنسوقا حلو إن بده كجرة دنكا يا وحبر شذا مركل لقي ماذا مركل عادو أنا وأنا هاي إن سعودي إلى هير ماستر سوغاري أو قيمة دنكا مقدشة لكن هادر كنورو جو وديجان كدكتي بيسكيس كدكتي نيروبي وأنا كم هستعدوه Trader Dini aad waa mahadsantahay saaxiib runtii barnaamijkan caawa in badan baynu soonaysanaynaa su'aalo badanna halkan waa isku idaarsanaynaa barnaamijkan cryptocurrency blockchain say ka warhayno waa mid ka mid ah barnaamijyada loogu hadalhaynta badan yahay caalamka waqti xaadirkan gaar ahaana imika intii Donald Trump ay Mareykanka loo doortay inuu madaxweyne noqdana waad aragtaa dhaqaaqa iyo isbedelada waaweyn ee dhankaas ka dhacay taasi markaa waxay keentay dad fara badan inay soo weydiiyaan su'aalo badanna ka yimaadaan barnaamijyadan cryptocurrency marka bal su'aalaha way badan yihiin marka bal waan kala horeysiin doonaa bal marka hore waxaan rabaa bal dhalinyarada iyo asxaabta barnaamijkan aan waxba kala socon in bal aad u sheegtid waa maxay cryptocurrency and blockchain أنا cryptocurrency ولما جملة كوين هاي crypto يا currency مركا علينا هو العك crypto waa magacii oo loo baxshay ah encrypted in laga dhigay lacagtaas marka cryptocurrency waa lacag digital ah oo virtual ah oo maxay ahaydey oo bedel alternative inuu noqoto lacagaadkii caadiga ah shilimaadkii iyo wixii anaga isticmaalaynay loogu talagalay waxyaabaha ay ku dhisan tahay ay tahay blockchains isku xirxiran oo security-gooda aad u adag yahay oo qofku si fudud uusan ku jabsan karin faa'iidooyinka ay lacagaadkaas ay leeyihiin waxaa ka mid ah sababaha loo aasaasina ay ka mid tahay waa in laga maarmo central bankiskii oo qasab ahayd in qofku lacagtiisa uu ku keedsado ama uu dhexmariyo marka transaction aad samaynaysid maanta oo kale haddaan lacag kuu diraayo waa in bangi ama meel kale aan soo maro xilliga saasay ahaan jirtay laakiin haddeer waxaa waaye inaad address wallet-kaada aan haysto si fudud aan lacagtii kugu diri karo sidoo kale faa'iida oo crypto laga heli karo waxaa waaye oo ugu weyn qofkii xoolihiisa hantidiisa inuu asal u madax banaan yahay oo si fudud ku qaadan karo maanta haddaan sabrayo elboorkan aan ka sabrayo oo waddanka raba aan aadi karo lacagtiidii mobilkaasi iigu jirtaa cid ii og intaan haysto intaan la safrika cid og ma lahan oo ah easy inaan qaato lacagtiidii easy la ii soo diro transaction lib low cost ah haddii meelaha kale aan marsiin lahaa lacag badan inay iga go'daan laga yaabaa sidoo kale safarka markaan leeyahay haddaan la safraysi lacagtaasi elboorada adduunka waa naqaan internationally lacag limit ay leeyihiin ilaa 10,000 meelahaas oo kale ah qofkii ka badan lagu arko macnaheedu waxa la leeyahay waddankaana ka bixaysa waddan kale lacagta geerata waa qofkii waa restrict halis inuu ku gala laga yaabaa laakiin haddaa lacagtaada mobilkaada aad ku sidatid laptopkaada ay ku jirto coin ahaan aad u wadatid way kuu fududahay inaad qaadatid sidoo kale in laga maarmo bankiyadii oo dadka lacagaadkooda maamuli jiray qofka lacagtiisa inuu asaga maamulo sidoo kale inuu invest garaysan karo lacagtaasi lacag ay kordhi karto return fiican uu leeyahay soo faro ah beri maanta haddaa wax gashatid oo project fiican
coin fiican aad iibsatid waxaa laga yaabaa inuu ritaankiisii 1x 2x uu ku gaaro marka faa'iidooyinkaas uu leeyahay waana waxa future-ku u socdo oo mustaqbalkii lacagteeda digital inay noqoto loo badinayo marka cryptocurrency waa inahaas sin ka warhayna maalmihii lasoo dhaafay bitcoin dhaqaaq aad u weyn bay samaysay iyadoo loo tiranayo inay saameyn ku leedahay isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay dalka Mareykanka maxaa keena coin ama bitcoin ha noqdo ama coin kale oo crypto ku jira ha noqday inuu sare kac intaa la eg sameeyo lacagtan bitcoin ah keligeedii kor maysan aadin oo all coinskii altcoins ku wala dhaho dhammaan waxa waaye inta ugu badneed booming ay sameynayaan oo ah xilli waxaa la galay bull run waxa la hayo markaan uu imaano bitcoin waxyaabaha saameynta ugu weyn ku yeeshtay waxaa waaye doorashadan la doortay Donald Trump doorashadiisii saameyn aad u weyn suuqii dhaqaalihii adduunka ku yeelatay sababtoo ah Donald Trump waa madaxweynihii ku ololeyn jiray markuu intaan asaga la dooranin inuu heen doono inuu ka dhigi doono bitcoin yani coin yani inuu haysan doono dhammaan digital asset-ka uu Mareykan leeyahay coinska ugu waaweyn oo haystaan waxaa ka mid ahaa bitcoin marka doorashadiisii waxay awood iyo kalsooni ay ku beertay siisay dhammaan investoradii adduunka oo institutionadii iyo dadkii lacagta haystayba markaas waxay aamineen in ninkii taageeri jiray coinskii iyo digital assetskii inuu dib loo doortay that's why ay u invest gareysteen that's why marka ay value bitcoin ay kor ugu sii kacday oo laga yaabo inay sii socoto inta sanadoodan lagu goodi jiro marka sababtaas ugu weyn okay soo kalena maxaad leedahay yani saameyn bay ku yeeshaan waayo hadii jeer waxaan aragnaa coin aad u kacay oo cirka aaday haddana mar kale data ama qiimihiisa hoos u dhacaan isagana talo maxaa keenaas leedahay waxyaabo badan oo sababi kara jiro waxyaabaha hadda fundamental ahaan waxa sababay doorashadan Trump waxyaabo kale oo sababi kara waxa kamid ah in kalsoonida dadka investorska oo kale inay hoos u dhacdo in dagaal ay adduunka ay ka qarxaan oo kale waxyaabo newsyo oo bitcoin-ka negative ku ah in la arko that's why marka kalsoonidaas haday mar laabato dadkii in iska sii salgareeyaan kulama dadkii haystay oo holdgareynay bitcoin-tii iyo dhammaan cryptadii dadkaas haday kalsoonida ka lunto ama maxay heday ay salgareeyaan bitcoin-ka qiimihiisa hoos u soo dhaci doona marka waa inaad trading aad baa runtii u mahadsan tahay waxaad moodaa runtii su'aaluhu inay su'aalba su'aasha ka dambaysa ay aad uga sii qiimo badan tahay si ka warhayno hadii jeer dhalinyarada u barnaamijkan aadka u xiiseeya inay maalgashadaan inta badan jeeb ahaan ma qoyinin oo dhaqaale fiican dhalinyaradu hadii jeer ma haystaan soo markaas in ka warhayno bitcoin imika 9,000 ayay maraysaaba haddaanay 100,000 ba gaarin inta muuqaalkan editka aan ku wadno ama aanay hoos uga soo noqonba okay qofku wuxuu ku khasban yahay suu barnaamijkan uga faa'iideysto ma inuu 9,000 keeno suu hal bitcoin helo mise waxaa jira qaabab kale oo qofku uga faa'iideysan karo dhaqaale kala duwan u gashan karo okay waa su'aal fiican horta maalgashi marka imaato waa wayska ama qaababka lacagaadka looga sameeyo cryptocurrency oo way ka mid ah investing long term investing noqo ama short term investor noqo marka leenahay bitcoin 9 iyo intaas ay maraysaa haddii rabina invest galayso bitcoin basbal horta kuma qasban inay bitcoin kaliya invest galaysatid group haddii lacala aad jeceshahay inaad bitcoin invest galaysatid inta kuma qasbanid inaad one coin ay iibsatid oo waxa iibsan kartaa waxa lagu magacaabo satoshi oo ah in yar ka mid ah bitcoin $100 gelin kartaa maanta bitcoin waxay ku siinayaan satoshi ama dhuruq ay ku siin doonaan oo coinskii jajab ay ka siinayaan adoo marka waxa jaanis ku banaan maadaama aadan heli karin lacagtaasi inaad coins kale oo ka jaban oo ayagana opportunity ka furan sida Dogecoin oo kale inaad invest garaysan kartid hadhow coin marwo waxa waa criteria ku invest garaysan doontid talaabooyin iyo tips jiro waxyaabaha ugu fiican anaga maadaama dad muslimiin maxay anaan dadku kula taliya ka mid ah qofka coin inuu raadiyo coin islaamiga oo coin ku dhisan xalaal ah inta xalaasha ka badan markii crypto la joogo sababtoo maalin walba intaas coin ala arka marka ku xalaasha hada invest garaysatid ku xaraanta ka fogaan kartaa qaabab loo baaraa jirto website laga fiiriyo telegram laga fiiriyo jirto mar walba adigu waxa ku dadaashaa marka sidee crypto xalaal oo crypto ah oo coins fiican oo project fiican leh ku invest garaystaa marka investment imaata marka oo lacag yar hada haysatid kuma qasbanid inaad bitcoin kaliya gadatid hada gadanaysid iyada dhan 1 bitcoin areedsatid oo 9,000 kuma qasbanid oo kaliya
inta heli kartid ku invest garaysan kartaa marka talada aan dadka siinayo waxa kamid ah investing markay timaado ko waxa adiga aaminsan waxa invest what you know riskiga la sheego oo qofkan suuqa ku qasaan markuu uu leeyahay wuxuu aqoonin invest garaysta horta baro aqoonteedii waxaan faham maxay yihiin horta marka fahamtid oo baratid markaas wax ka keeni kartaa talabaad wax adiga ka maarmi kartid oo maanta aadan u baahnayn oo guriga biilkiisa ahayn oo korontadii iyo bishii cuntadii waxaan ahayn geli oo beri markii muddo ay ku ahayn kartid oo la gareyn kartid markay xogo qiimo iyo value kor u kaco markaas inaad lacagtii aad marka kala bixi kartid wixii faa'iido ah sidoo kale inaad lacagtaadana aadan qof aadan u dhiibanin oo email geli aadan bixin antaas waa talooyin oo qofka oo bilowga ah oo investorka ah aan kula talinayno aad baa mahadsan tahay Tredini runtii anoo bal tixraacay jawaabtaada waxaad ka dhawaajisay inay jiraan coins laga trade garan karo ama laga faa'iideysan karo maalgashigooda kuwaas oo runtii xalaal ah say ka warhayno dee taasaaba su'aal kale ka imaanaysa sida lagu ogaan karo bal coinka qofku maalgashanayo ee xalaasha ah waayo dadin dad salaam nahay xaaraantu marnaba inooma banaana inaynu waxa weeyaan aynu dee maalgashano ama inay ka trade garano marka bal sidee baa looga faa'iideysan karaa bal oo qofku ku kala sooci karaa coinska xalaasha ah iyo kuwa xaaraanta ah way jiraan dhowr website jiro dhowr page jiro linkiyadooda waxa waaye waa kula share garan doonaa waxaa loo dhigi doonaa dhalinyarta description-ka si ay si fudud ugu heli karaan mar walba marka coinka waxyaabaha lagu ogaado waxaa kamid ah xalaalnimadiisii kow horta inaad ogaagto white paper-ka sababta coinkan use case-kiis maxaa loo isticmaalaa muxuu qabtaa coin walba shaqo iyo howl u fududeeya qaara transactions fududeeya qaara wuxuu ku dhisan yahay coinkan marka coinkan hadduu xaaraan uu ku dhisan yahay macnaheedu automatically saas oo xaaraan ku yahay adna kuma fiicna inaad xaaraanta aad maalgashitid waxaa ku fiican inaad invest garaysatid coinska oo xalaasha ah oo la yaqaano projectida ay ku dhisan yihiin bitcoin oo kale hadda culmo badan ka hadashay waa xalaal waa digital asset lacagtii oo digital laga dhigay kaliya waa oo 9,000 ma aysan gaarin oo ma la invest garaysan lahayn haddii wax oo aan muhiim ahayn aysan ahaan lahayn oo bil walba iyo sanad walba intaasay gengarinaysa imagine qof 2011 hal dollar ku gatay oo haddana 9,000 haysto qofkii 10 xabba haysan lahaa meeqa ku heli lahaa maanta oo almost waxa way lacag fiican ka qaban lahaa marka macnaheedu waxa waaye coinskaasi weeyada lagu baaro waxa kow ka ah use case-kaasi iyo white paper-ka qofka inuu akhriyo iyo website oo waxaa jira dad muslimiin ay leeyihiin oo ay ku dadaalaan inay coinska xalaasha la maalgashto telegram oo kale hadda waxaa laga heli karaa page oo islaamic crypto lahaa crypto xalaal iyo crypto islaamiga ku qoran qof markuu sirji gareeyo arki karaa coinka sirji gareyn kartaa marka sirji gareysid magaciisa waxa ku soo baxay coinkaasi inuu xalaal yahay inuu xaraan yahay taas kaliya ma ku go'aan qaadanaysid iyo coinka ina akhrisid iyo wixii loo isticmaalo hadhow baan sax ah qaadan doon sidoo kale kuwa xalaasha loo iska muuqdaanba mar walba waa sida diinta lagu sheegay inaad xalaal bayin waxna xaraam bayin wax walba way kala cad yihiin marka wixii cad ina mar walba aan qaadano taasan ku taliya aad baad runtii u mahadsan tahay Tredini runtii waa su'aal u baahan qofku inuu mar walba ka warhayo waxyaabaha uu maalgashanayo wuxuu dhaqaalaha ka sameyn runtiina wax bogaadin mudan runtii traded budde waxaad ahayd dhalinyarada dhaqaalaha ka sameeya barnaamijkan welibana dee u faradhudhuuban oo muddo xoogaa ayaa ku jiray dhalinyaradu waxay isweydiinayaan marka la joogo cryptocurrency-ka qofku siduu dhaqaalaha uga sameyn karo bal u fasir wadada ugu fiican ee qof dhalinyaro maanta u baahan inuu dhaqaale ka sameeyo sida uga sameyn karo barnaamijkan maadaama yahay barnaamij dee aad loo ammaanayo hadalhaynteedu badan tahay dadkuna weli u dhegtaagayaan siday uga faa'iideysan lahayeen qofka markuu waxa ugu muhiimsan rabtid inaad dhaqaale ka samaysid waa inaad bartid horta say u shaqeeyaan wayska dhaqaalaha looga sameynayo marka kiribto imaato dhowr wada dhaqaale looga sameeyaa wadooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah kow qofka inuu investor noqdo investorka waxaa waaye inaad lacag ku maalgelisid hagoo lacagaas haysataa oo ka maarmi kartid oo maanta suuqasan gelin aad dhihi kartid coins jaban oo qiimo leh oo fiican oo beri laga yaabo inuu qiimahooda uu ku kordho ayaa ku maalgashan kartaa inaas waa investment weyga labaad ee qofka uu lacag ugu sameyn karo waxaa waaye inuu suuqa ka trade gareeyo dadka Soomaalida badan ma fahamsana trading wax kale laga trade gareeyo stock trading iyo wax badan la arkaa laakiin
suuqan crypto nasirkiisii waa laga trade gareyn karaa. Trade-ka qofkii le marka trade-ka kaliya inaad iska trade garaysid oo iska geshid maaha. Wuxuu u baahan yahay nasirkiisa aqoon, wuxuu u baahan yahay istaraatiijiyad, wuxuu u baahan tahay inaad risk manager tahay oo riskiyaada ka maxay manage gareyn kartid, iyo psychology ahaan mentally inaad qof emotionkiisii ka adag inaad tahay. Oo suuqii maanta haddaa aragtid in lacagtaadii xoogoo ay down ku jirto, inaadan ka naxin oo aadan la boodin lacagtii oo khasaaradii aa qaadanin, inaad dhihi kartid I have to wait, balaankaasaan leeyahay, investment balan, trading balan aan leeyahay, balankaada inaad ku socon kartid. Weeyada tale qofka uu lacag uga sameyn karo waxaa ka mid ah qofkii asoona lacag gelin inuu lacag ka sameeyo. Soomaalida wax free way jecel yihiin, laakiin freega see lagu heli karaa? Freega naftirkiisa shaqo kaa rabaa. Waxaa ka mid ah aan hore u aragnay, aan daraadna arknayba inuu airdropis waxaa lahaa airdropiska waxaa waaye coins abaalmarin in lagu siiyo, adoo coinkaasi sababta lagu siinayo ay tahay inaad coinkaas promote garaysay, promotion inaad ku samaysay, inaad kambanigii ama shirkadii coinkaasi soo saartay, inaad follow garaysay page-koodii, shaqaday kuu direen inaad qabatay. Shaqooyin ay kuu dirayaan dabcan waxay ku leeyihiin videogan daawo, YouTube-ka daawo, waxay ku dhihi karaan su'aashan ka soo jawaab. Daily maxay kambo waxay dhahayeen. Waxaan hore u soo aragnay oo adana aad u hadashay Hamster Combat oo bulshada ay aad ugu dheregsan tahay, inkastoo uusan naqaanin sidii laga filayay oo xoogoo dadka lagu gaaday, laakiin mar walba wax free ah dadka way jecel yihiin, laakiin value ma badna. Waxaa ka fiican in waxaan free ahayn inaad mar walba aad raadisiyo ah inaad investor naqatid. Macnaheedu coin free kuma tashanin oo aad lacagta ku iibsaday, hadhow coinkaasi qiimihiisa hadduu kuu kaco meesha faa'iido ka samaysay. Inaad trade naqatid oo trader naqatid oo istaraatiijiyadii iyo luuqadii suuqan uu ku hadlay inaad baratid. Aqoon way maxay yahay waxa ugu muhiimsan qofka uu lacag ku sameyn karo waa aqoon. Waxa hadaa aqoon u leedahay cidi kaama xigto. Qaabab kale lacag lagu sameeyo waxaa ka mid ah mining, qofka inuu maxay yahay lagu sameeyo kale. Mining marka waa waxa waaye waxay u baahan tahay waa waqti iyo qarash iyo awood iyo kombiyuuteraad aanan hadda kari karin. Marka wadooyinka ugu dhow ee ugu fudud waxaa waaye maxay ahayd investment iyo trade inaad samaysid. Labadaas inaad la katib. Mid walbana talooyin jiro oo qofka la siiyo. Weeyda investor haddaa tahay waxa awoodid oo aad taqaanid invest garayso, wixii horta baro. Waxaadan aqoonin weliga riskiga lagu sheegaba waxay ka timaadaa waxaadan aqoonin. Risk comes from what you don't know. Meeshaas ka timaadaa. Talabaad inaadan wax oo qofkii aadan iska aaminin qof aadan xoolaha iskaga dhiibin. Saddex inaad raadsisid meelihii laga baranayay, mentor inaad raadsisid, inaad community aad ku biirtid, inaad wixii aad serious u naqatid. Trade-kana sidoo kale inaad u go'dido aad dhahdid anuu trader aan naqana suuqaas inaan ka faa'iideystaan rabaa. Trade walba oo trader aan naqatin waxaa ka xigta aqoon waxa u leedahay markaas lacag ka sameyn kartaa. Trader aad baa runtii u mahadsan tahay. Hadii jeer horta bogeenan waxaa ku xiran dhalinyaro, hadii jeer isbedel nololeed u baahan in nolosha madax banaanaadaan, dhaqaale sameeyaan. Balse laakiin hadii jeer waxaan dhalinyarada iyo inagu dhammaanteynba ma haysanaa dhaqaale intaa la eego aan oran karno maanta waxaan ku maalgashan karnaa kriptada. Laakiin waxaan haynaa bedelka taas oo ah energy-gii, time-kii, maskaxdii, awoodii waxaas oo dhan. Intaasna wax loo dhigaa meel ma ahan, waayo waxa weeyaan wax walba lagu wado. Marka 90% dhalinyaradu dhaqaale buuran ama jeeb fiican ma hayaane. Sida ugu fiican ay uga faa'iideysan karaan waa sidee talo. Waa su'aal aad u muhiim ah. Anigu waxaan kula talin lahaa qof walba oo danaynaya horta suuqan pasta aqoonta adduunkii hadda waxaa waaye globally wax walba u baahatid waa heli kartaa. Aqoon ha noqoto wax walba waxaa laga rabaa inaad horta skill yeelatid, xirfad ay noqoto. Markay suuqan aan joognana waa inaad raadsatid aqoon. Waxaadan aqoon u lahayn ma invest garaysan kartid, waxaan aqoon u lahayn ma ka trade garin kartid. Labada suuq ugu badan ee lacagta laga sameeyo waa labadaas. Marka cryptocurrency haddaad rabtid inaad lacag ka samaysid, horta maxay tahay soo baro. So basic horta wax ka faham. Kadib raadi maxay ahayd aqoontii oo saxda ahayd oo lacagta looga sameyn lahaa. Kadib markaa aqoontii yeelatid, adaa dhihi doono anigu trader baan ahay ama investor aan naqana. Investor hadday awooddaada ku geyso oo lacagteedana ay heli kartid, waa naqan kartaa. Labadoodii yaa fiican. Su'aal oo mar walba dadka is weydiiyaan waaye. Labadoodiiba adoo waxa lacag ka sameynaysaa ku fiican. Sida saxda ah. Qofna investor uu naqan karaa oo intaas kun heli karaa, 20,000 maanta heli karaa, intaas kun galan karaa. Adiga ma heli kartid. Maxaa sameyn kartaa 20,000 ma heli ma karo.
waxaa samayn kartaa inaad dhihi kartid intaanan aan ku bilaabi karaa trader aan laqanaa suuqa laga tradejareyn karaa lacag waa lagu samayn karaa marka intaas ayaan taladeeda sii lahaa aqoontaas in loo yeeshto marka tradediina aad baa runtii u mahadsan tahay sanad walba waxaa soo baxaa applicationo runtii dadka soomaalida ah had iyo jeer dhaqaale fara badan lagaga dhaco iyagoo wejiyo noocyo kala duwan leh ku soo gala suuqa marba weji nooc ay ku soo galaan base laakiin had iyo jeer waxaa ku war helnaa iyadoo markaasi dhac ba-an uu dhacay dhaqaale badan lagu waayey tradebot mid la oran jiray iyo applicationo yaryar oo wada noocaasa oo had iyo jeer indho yartan iyo eshiyaanku soo develop gareeyaan soomaaliduna maadaama aanay aqoon fara badan u lahayn barnaamijkan markay arkeen dhowr jeer dad lagu dhacay waxay u aqoonsadeen wax kasta oo laynaba inuu dhac yahay talow sidee bay dadku uga waantoobi karaan oo iskaga ilaalin karaan barnaamijyada scammersku leeyihiin ee dadka lagu dhacayo horta bulshadeena Soomaaliyeed ilaahay khayr ha siiyo dad waxa waa horumarka jecel laakiin waxaan ka jecelnahay horumarka inaan u shaqeysano ma jecelini inaan shortcut ka helno oo maanta wadada ugu dhow inaan lacag ka sameeyno haddaan maanta ku dhaho saaxiibkaygaa tahay halkaana nimco laga sheegay 50 kuna igaga jirta adna waxa ay leedahay beri 20 ka iigu dar adoonan ogeyn waxa aan 50 ka sameeyay iyo waxa aan u gashay marka sababta ugu weyn waxa waaye aqoon la'aantaas aan oo geysato horta waa taa haday sheegay wax walbo investigation aqoon u yeelo know what you are investing lacagta meesha galayso meesha ka baxayso meesha wax ku naqanayso ogow tan ku xigto ma jirto qof ku dhahay imagine logical xataa ma maskaxiyan xataa sax ma ahan qof waxa ku soo dira fariimo telegramka ku arkay ama whatsappka ama qof kale oo la dhacay oo ku leeyahay saaxiib saan ay u dhacday sababta kaliya ay tahayna inuu qof fariin u soo diray oo dhahay niyo $100 soo dirso 3,000 helaysa calal kadib imagine qof $100 soo diray la dhahay 3,000 helay macnaheedu qofka 3,000 markuu ku siinayo muxuu 100kaada kala muxuu ka rabaa 100kaada muu iska daayo muu 3,000 samaysto adduunkiisa dhaqdo sababta meeshaas aqliga ku jiro ah inuu 100kaadina qaado dad badan oo saas lagu sameeyay arkay oo gabar ani oo biilkeedii oo ay ilmihiisii lahayd ay 200 looga qaatay markii laga qaatay kadib la dhahay haddana lacagtii 3,000 waa samaysay waatana in sawir loo soo diray oo feeg ah kadib la dhahay haddana lacagtaasi waa ku soo diri lahayn wixii aan ku soo diri lahayn oo ku soo bixin lahayn laga rabaa haddana 100 kale soo dir ay saas 300 ku sii dirtay marka macnaheedu waxa waaye qofka hadduu kugu yiraahdo waxaana si fudud ku sameynay iyo ana ku sameynay lacagtaada keen waxa waaye qofkaas qofka u dhici rabo waaye inaad mar walba feejignaatid sidoo kale haddaa aragtid qofku dhahayo saacadaha wax ku sameynaysa adduunka wax saacad lagu sameeyo ma jiro wax walba waqti qaataan aqoon ay u baahan yihiin time ay qaataan haddaan ku dhaho investor naqo investornimada naftirkeedii waqti inaad gelisid waxa ugu fiican istaraatiijiyad wax lagu invest garaysto waxa la buy low sell high buy low sell high inaad baratid naftirkeeda time ay ka aragtaa inaad baratid technical analysis ay ka aragtaa fundamental analysis inaad baratid suuqii halkuu aadi doonaa inaad waxaas dhan analyze garin kartid markaad tarigelinaysid inida soo gala aqoon mar walba marka aqoonta fast aqoon u yeelo kadib waxay heday aad suuqan kaga badbaadi kartaa dhicitaankiisii sidoo kale waxaa kaga badbaadi kartaa inaad lacagtaada ay ku lusgarowdo meesha ay ku lunto waxaa kaga badbaadi kartaa moral ahaan inaad u dirantid qof maanta lacagtii uu biilkiisii uu laga dhacay beri qof kale uu aamini doono male marka inaan taas caqabadahaas aysan kugu dhicin aadna ka fogaatid sidoo kale applicationada ani waxaan aad ugu recommend garay qofka application oo horta lacag free laga sameeyo ma jiro isla fahmna umalayna applicationka markii uu ku leeyahay lacagtaada keen intaasaan kaa siina macnaheedu lacagtaadu raba inuu kuu yaryareeyo hadhowna markuu dantiisii gaaro uu boodo kuwa badan aragnay hadda kan ugu dambeeyay Kubix Cube mid ladahay jiro ayar saaxiibkii lacag oo fiican oo familkiisa xataa lacag asaga ay uusan lahayn oo familka ay lahaayeen u hay ilaa 10,000 ay sii gaarayso oo isla markii maalinku rabay inuu la baxo isla markiiba la dhahay waa waxa ma shaqeynayaan application marka maalin walbaana lagu dhacaa kaligiis leh ma ahan oo CJ install iyo wax badan oo soo aragnay marka waxaan kula talinayaa dhalinyarta war wixii lagu shaqeyn lahaa way cad yihiin aqoonteedii yeelo Binance oo kale hadaan uu kama sheekaysan laakiin waa un application natarkiisi oo beri khalqal la gelin karaa ama maxay waxa diidi karto maxay Apple ama ay Android laga diidi karaa adoo mar maxaa samaysaa marka riskiga ogow know the risk sidoo kale before you invest learn baro aqoontii meeshii ka xigta ka baro trading runtii aad ba mahadsan tahay waxa rabaa bal haddana maadaama xog inta la eeg iyo aqoon inta la eeg aad u leedahay trade-ka crypto iyo forex labadaba marka la isku daro
runtiina dee nin dhalinyaro waxa weeyaan dee had iyo jeer ku mashquulsanaa waqtigiisa inuu geliyo skiilka inuu dhiso. Kule muddo dheer baad ku jirtay saad ii sheegtay. Ma jiraan mawduucyo aad ugu talagashay dhalinyarada bal inaad ku hormarisid taasoo markaa qayb ka qaadanaysa in dhalinyarada dee waxa weeyaan barnaamijkana dhegeysan doonta in ay ka faa'iidaystaan? way jiraan mawduucyo oo hadda waxaa ka mid ah podcastgan annaga aan duubayno waxaas leenahay bal dadkan Soomaaliyeed wax ha ka fahmaano suuqan oo maadaama ay tahay wixii adduunka trend ka ah oo adduunku meeshuu u socdo inaan maxay ahayd annagana aan ka faa'iidaysano aanan ka harin tareenka socdo taasaa marka nagu kalifayso in wixii annaga inaan ka sameyno wax resources ah oo qofkii ka faa'iidaysan karo way jiraan. waxaa laga heli karaa cilmi.so qofkii u baahan marka wuu ka eegan karaa wuu ka fiiri karaa walba marka talada go'aanka adigu kugu xiran yahay. suuqan ma jiro wax oo shortcut la dhaho beri maanta lacag keli sidoo ka samaysid aqoon ma jirto maanta haddaa bilowdid beri ka samaysid wax walba sabar ay u baahan yihiin waqti qaado xilliga skillskii lagu shaqeyn lahaa la maraa 2024 dhammaadkiisi 25 yaysan kuu dhammaanin yaysan kuu dhalanin adoona skill oo ku shaqaysta aan lahayn. maanta 90% dadkeena Soomaali adoo lacag tiro oo percentage badan 90 yaana dhihin waxay ku shaqeeyaan waa skillkood waxaysan soo baranin. adduunkan markii suuqan online-ka la imaado waxyaabaha faa'iidada uu leeyahay waxaa ka mid ah qofka inuu ka heli karo xornimo. xornimada iyadaa 3 qaybood loo qaybiyaa oo financial freedom inuu qofka helo dhaqaalena ka heshid suuqan online-ka ah crypto. time freedom inaa heshido waqtiga inaad cidlo kula lahayn oo maanta shaqadii ka soo daahday iyo waa ka habsaantay iyo waa ka baaqatay iyo inaan lagu dhihin oo ganax kugu dhicin. sidoo kale location freedom aad baa runtii u mahadsan tahay. runtii se ka war hayno doorashada Maraykanka ka dhacday isbeddelkii siyaasadeed ee ka dhacay halkaas runtii wuxuu saameyn weyn ku yeeshay suuqa oon arkanay bitcoin dhaqaaqa inta la eegay samaysay adiguna ragga aadka ugu faraha dhudhumo baad ka mid aheedoo barnaamijkaas iyo doorashadaaba isha ayaad ku haysay. bal doorashadaasi isbeddelka dhacay dhaqaale intee la eg baad ka faa'iiday kooxihiinii barnaamijka ku jiray ee faa'iidada fiican sameeyey? anigu shakhsi ahaan uma taageersani Trump laakiin waxaa u taageersanahay saameynta uu suuqa ku leeyahay waa dhinaca positive-ka oo ah inuu dhinaca digitalka okay ku jiro oo unbaa fahmi kara oo cagsi kumahay cadow kumahay walaaleyna dhalinyartaas oo derbiga ka booday in la soo celiyo tiimkii Nairobi inay Nairobi noo soo laabtaan anigu ma taageersani. keliya bes Trump wuxuu sababay asaga ma gaarsiinin wuxuu sababay inuu confidence iyo kalsoonidii institutionskii lacagtaas ay ku qabeen inay badato dadka investorska suuqa dhaqaajiyo dadkaas inay kalsooni helaan ay suuqa invest gareystaan. that's why marka ay digitalka ay mar walba maxay faa'iidadaas ay u leedahay. tan ka xigto ani ahaan waxaan uga faa'iidaystay laba qaabba oo ah inaad waxna invest gareysto oo ah inaad lacag meel aad gelisid coins cheap ah inaad iibsatid oo beri aan leedahay future ay leeyihiin oo coins dhaqaaqaay sababtoo ah mar walba coins oo waxaa jiro suuqa bull run-ka marka lagu jiro oo suuqa dhaqaaqa marna wuu dhaqaaqaa marna waa suuqii trending marna waa consolidation iskaga jiraa suuqa. markuu dhaqaaqyada uu sameynayo waxaa jiro coins oo muuqato projectyadoodana ay muuqdaan oo faa'iido laga heli karo kuwaas inaad iibsatid oo heli kartid. iyo sidoo kale markii xilligan dhaqaaq uu badan yahay fursadaha ugu badan ee trade markaas la helaa waa qofkii inuu u raaci karo trade wax kale ma ahan inaad suuqan iibsatid meesha u socdan uu iibsatid. follow the trend is your friend macnaheedu waxa waa inaad raaci kartid. marka labada qaab qofkiiba ku jira ugu faa'iideysan karaa ama waa ugu faa'iideystay. marka haddana still weli fursadihii way jiraan aan aaminsanahay inuu qofkii barto un keliya ka xigto uu ka faa'iideysto. marka waa mahadsantahay. ugu dambeyntii Trendini aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga ah. waxaan rajeynayaa barnaamijyo kaloo badanna inaynu ku kulmi doono taasoo runtii horseed u noqon karta in dhalinyarada isbeddel nololeed ay galaan sidoo kalena ay ka faa'iidaystaan isbeddelada waaweyn ee adduunyada ka dhacaya oo ay hogaaminayso iminka cryptocurrency and blockchain. Trendini bal intaanan barnaamijkan ka bixin bal dhowr talo haddii aad dhalinyarada la wadaagi kartid maxaad kula talin lahayd? dhalinyarta waxaan kula talin lahaa iyo qof walba suuqan online-ka
oo crypto danaynayo waxaan kula talin lahaa taasta suuqan horta lacagna waa laga sameeyaa lacagna waa lagu khasaaraa oo waa hadduu wada faa'iido ahaan lahaa waxaa la dhihi lahaaba qof maanta crypto ka marnaan lahaa ma jirto sababta waxaa laga yaabaa coin invest garaysatay inuu kula dhaco waxaasna waxaa ku kala ogaan kartaa inaa aqoontoodii raadisid aasta horta aqoontii u yeelo wixii wax ka faham raadi meel walbo aqoon aad ka heli kartid ka raadi youtube ugu weyn hadda baladkoomyada wax laga barto ku qor wad scripto ku qor haddaa ingiriiskii ku fiican tahay ku qor haddaa aragii luuqadeeda joogtid meel carabi ah ka raadi haddaa soomaali tahay waa ku qori kartaa waa heli xog badan oo crypto basic ah heli kartaa youtube waa iska firi waa naqaanaa maalin walbaana saacadii waqti ku lumina tan ku xigto inaan waqtigeena gelino skillna anfacayo oo ah anaga wax anaga aan u baahanna marka waqti hal geliya aan leeyahay trade oo kale haddaa rabtid inaad crypto trader noqotid waxaa kaaga baahan tahay inaad waqti u heshid inaad time siisid inaad dulqaadkeeda yeelatid inaad baratid everything way kaa xigtaa laakiin markay investment timaado waxaa kaa xigto way ka fududahay markii trade la tago tradeku waa inaad adiga gacanta wax ku qabatid oo suuqii aad fahmi kartid oo technically fundamental analysis ay kaa rabtaa laakiin markay investment noqotid waxaa kaa xigta in research badan aad samaysid badanaa waxaan kula taliyaa coinkaas iibso qof weligii maanan dhihin do your own research waxaan lahaa diyor waa suuqan waxa keliya ee qofka talo kugu siin karo diyor waxaa waaye do your own research aduu wax soo baar koonka adig ku qancay anuu midka adig ku qanco isku mid maaha anaa huwa soo baaro kii aa is leedahay maanta coinkan waxaa ka dhalin kartaa markaa ogaatid kadib invest garayso adoona ogeyn ha gelin lacagtaada tan ku xigto qof hadduu ku dhaho maanta lacagtaada keen meelan kugu gelina ha aaminin ilaahu muunaqo saaxiibkaa kuugu dhow waxaa aamini kartaa ii sheeg anaa gashanaa dhihi kartaa soo baar markuu coinku kuu sheego ama wax kale kuu sheego mar walbo waxaa og tahay invest garayso wax ka badbaadaysaa kii sidoo kale iskaamyada iska ilaali oo ah maalin qofku dhahay 300 keen 10 kuna ka sameynaya iyo 5 kuna ka sameynaya lacagta hadayba double noqoto weligeed business double oo one day oo less than one day laga sameynayo maba jiro yaanan marka maxay kawaalis wax la yaqaanaya laga waali suuqan wuxuu u baahan yahay patience qof aan dulqaad lahayn ma sameyn karo coin maanta ay iibsatay 3 sano 4 sano inaad heen kartid la rabaa ugu yaraan inaad hadhow dhihi kartid intaas 2020 soo invest garaystay bal maanta faa'iidadaasaan taagana macnaheedu qof oo aan patient lahayn ma sameyn karo waa inaad dulqaadkii aa yeelatid waa inaad psychology ahaan u dhisan tahay oo dhihi kartid maanta haddaa minus aan ku jiro beriyan faa'iida sidoo kale talooyinka dadka investment aan siino waxaa ka mid ah DCA waxaa lahaa inaad samaysid DCA waa istaraatiijiyad aad iyo aad u fiican oo suuqan looga soo caanamaalay hadda meeshan la taagan yahay weligeed lama taagneyn waa meesha ugu dad badneed all time high la gaaray 9 kun weligeed dadka ma sheegin sanadkan iyo isbuucana ugu horeyso soo ma intay jirtay 2023 maray hoos joogtay oo kontonka sii hooseysay markaas maxaa la sameyn leeyahay waa inaad dulqaad yahay haddaa lacagta la carireed kabar ma faa'iidad hadda aad taagan tahay taagnaan lahayd waa maya mar walba dulqaadka la isku dhaca sidoo kale DCA waxaa waaye inaad dollar cost average aan lahaa qofka inuu mar walbo hadduu lacagtiisa hoos kula dhacdo hadduu investor yahay waaye markaasaa la sameeya hadday hoos kula gasho $100 haysatay 70 ay sii maray 30% hoos ku jirtaa haddaa u aragtid meesha suuqu inuu kasoo laaban karo inaad lacag kale yar agelisid si hadhow markuu soo laabto lacagtaadii khasaaradan aa soo kabatid faa'iidana u joogid u istaagtid laakiin hal mar lacagta wad haysatid hawada gelin suuqan $1,000 haysataa 10 kun haysataa ma hawada dhigin samay istaraatiiji oo ah intaan 5% ama maxay ahayd 50% lacagtaasan gelina sidoo kale waxyaabahan kula talina waxaa kamid ah portfolio inaad samaysatid portfolio waxaa laga wadaa don't put all your money or your eggs in one basket oo ah dhammaan ukumaha hal meel hawada dhigin oo waxaa laga yaabaa inay halkii meel ay si fudud ku weysid oo ku khasaartid maxaa samaysaa marka dhowr koon oo kala duwan $1,000 haysataa 5 koon oo maanta is leedahay beri profit ay sameynaya mid walbo inta balaankaadi u geli oo ah maxay ahayd midna waxa gelisaa maxay ahayd min 200 si ama ka duwan say u kala faa'iido badan yihiin hadhow maxaa faa'iido ah heli doonta haddii mid oo ku khasaartid kan kala faa'iidadiisa ku sameynayo portfolio ina diversification of maxay ahayd asset ina samaysid oo ah ina diversify samaysid iyo waxa taqaan inaad best garaysatid inaan dadka aaminin oo iska sameyn iyo inaad wixii aqoon ah u yeelatid iyo inaad dulqaad ah yeelatid intaas waa talooyinka inaan siin lahaa dad qof halka ku cusub mar walbana skill yeelo kaliya ma ahan inaad crypto iyo trade iyo inaad
naqatid ay skill samayn kartaa adduunka digital u noqday online u noqday waxyaabaha adduunka qofka xornimada siiyo oo qof xornimo raadinaya ama dhalinyar ah oo maanta oo free ka dhigi karo waa skillkiis maanta hadaa skill leedahay xirfada maanta lacag kusoo gelinaysa aad leedahay cidaa u baahan tahay malaha haddii youtube-ka oo kale soomaalida aad u fahmeen waa skill fiican qofka hadduu youtuber noqdo macnaheedii wuxuu ku dareemi karaa all youtuber is free badanaa mustali shaqaale maaha maxaa u yeelay qof waxaa laga yaabaa jaamacad soo bartay inuu shaqaale yahay ama meel kale joogo maxaa ka dhigay qofkan waxaa ka dhigay skillkiisii xornimo ka dhigay xornimo muxuu haystaa maaliyadeed oo ah maanta inuusan cid lacag uusan ugu baahnayn qofka crypto investor ama traderka sidoo kale xornimo waxaa helayta waqti maanta inaan waqtigaa lagula lahayn oo lagu xisaabinaynin adoo dhalinyara haddii lagu dhaho free hata waqtigaada meesha rabtina aad oo meesha rabta u safri kartid meesha rabta adeegi kartid meesha rabta ka trade gareyn kartid aan lagu maamulin boos adaa isku be around boss aan lahaa adaaba boos isku ah oo qof maanta kugu xukumi karo ma lahan maanta waa soo daaday shaqa ka soo habsaantay iyo isbuucan ganaaxa hataa iyo mishaar ma lihid mar walba xornimadaasi waxaa ka heli kartaa maxay heday inaad skill leedahay crypto ha noqoto trade walba ha noqoto ay skill kale mar walba marka skillkaas yeelo waqtigaa ka faa'iideyso dhinaca diintaadan ha iloobin oo salaadahaaga iyo waqtigaadii waxa waaye qofka muslimka waxa waaye haddaa howlahaaga ilaahay rabtid inuu kuu fududay mar walba dhinaca ilaahay ka doon oo ka raadi haddaa salaadahaada waqtigooda saxdid oo timekooda aad ku dukatid oo ilaahay howshan ii fududay aad hayd skillka waxaa u baran kartaa adoo shaqada wata aad one day maalinkii hal saacadood aad siin kartaa maalinkii hal saacadood haddaa siisid way kaa badan tahay in muddo inaa wadid bes waxyaabaha skillka lagu barto oo talooyinka ah waxaa ka mid ah qofka inuu sameeyo program ama maxay ahayd la dhahayo 9091 waxaan ka wadaa 90 days 9 beri ama 3 bilood inaan 90 minutes maalinkaadi ka mid ah waa saacad ii bar ma la weyn kara saacad ii bar ma weyn karta daba halkaas oo serious ka ayaa u go'anta iyo one task inaad samaysid 90 days 90 minutes every day one task antaas haddaa samaysid waxaan hubaa skillkaasi inaad meel dadka ugu fiican ka mid noqon kartid hadday crypto tahay hadday trading tahay hadday youtube tahay hadday wax walba tahay video editing hadday tahay ani online looga shaqeysto si really midda igu habboon tanaa baran kara intee kale talada kaloo fiican maxaa waaye dadaa waxaa waaye suuqan ku jiro 5 sano iyo 6 sano oo weli aanan is arkin faa'iido aanan ka samaynin maxaa ka qaldan qofkaas maantaba meel youtube-ka oo kale hadda aqoontii way taalaa laakiin way isku qasabta cashwaayay ku tahay kalama saarno maxaa u baahan tahay community sax iyo mentor sax inaad heshid iyo istaraatiijiyad iyo qofkii saxda ah inaad heshid hadhow suuqu muxuu kuu samaynaa qofkaas uu ku mentor gareynaa wuxuu ku bari doonaa wuxuu asaga u shaqeeyo wuxuu ku leeyahay waxaan ani ii shaqeeyo waxaana u baahantaa intaas hadhow marka maxaa faa'iido ka heli doontaa waqtigaada wuu kuu beeqaamsama skillkii saxda ahna waa heli doontaa waddadii ugu fudud waa ku baran doontaa taas waa cilmi marka aan aqoontii aan isdhahnay inaa ku baahisaan waaye marka waxaan rajaynaya in laga faa'iidaysan doono qof walbana uu xirfad la naqon doono si uu noloshiisu horumariyo ka dhalinyar ahaan iyo ka shakhsiyad ahaanba inaa xor noqotid maanta aday faa'iido kuu tahay waalidkaada taageeri nafsadaada taageeri familkaada taageeri doontaa meesha rabta adduunku safri tag kartaa waxaa samayn kartaa wax adduunku maamulba waa lacag haddaa lacag samaynaysid idaa wax ugu baahan tahay waa iska yar tahayba marka talooyinkaasaan siinaa okay tradini aad baad ugu mahadsantay waqtiga ee qaaliga insha allah tacaala waxaan rajeynayaa in badan oo kale inaynu iskugu imaan doono barnaamijkan oo kale ah yacni barnaamij aan isku wareysan doono kagana hadli doono barnaamijyada kriptada iyo sidoo kale suuqyada caalamiga ah waxa weeyaan dadku had iyo jeer u baahan inay ka hadlaan waxaan rabaa sidoo kale inaan dhalinyarada halkan nagala socoto dhammaantood u sheegno inaanu sameynay telegram group kaasoo nagu talagalnay bal in dhalinyaradu ka helaan xogihii ugu dambeeyey macluumaadkii ugu dambeeyey suuqyada kriptada iyo guud ahaanba suuqyada caalamiga ah si ay uga faa'iidaystaan linkigaa soo raacaan hana ka mid noqdaan kooxaha barnaamijkan imiga ka faa'iidaysta maadaama la galayo casrigii kriptada sababtuna ay tahay isbeddelkii weynaa ee siyaasiga ah ee ka dhacay maraykanka insha allahu tacaala asxaabta iyo akhyaarta iyo dhalinyarada halkan igala socotaba waxaan leeyahay waa inoo kulanti dambe oo wanaagsan